بسم الله الرحمن الرحيم يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني ولهت بنا بزروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق قوم شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة waxaanu halkan ka bilaabaynaa suuradda lagu magacaabo suuratu lbaqara. suuraddu waa suurad madani ah. suuradaha markii nebi moxamed uu u soo hijrooday madiine soo degay ayayna ka mid tahay. suuratulbaqara waa suurad cajaa'ib gooni ah leh, waa suurad miise gooni ah leh, fadaa'il fara badanna ay ku jirto. axkaam fara badan oo dhowr ah ayaa gudaheeda ku dhex sugan suuradda. qof kasta oo muslim ah oo iimaan leh ay u wanaagsan tahay inuu suuradda qabsado, aqriyo, ku dhaqmo, kuna tadabburo. qiso dhacday oo sac la gowrici doono ah oo isada noogu imaan doontaa loogu magac daray suuraddu. guri alla guriga lagu aqriyana waxaa ka firxada oo ka orda shayaadiinta umana soo dhowaadaan. suuratulbaqara waa suuradda qur-aanka ugu dheer, sidaa darteed baa waxay ka kooban tahay sida aan tilmaannay axkaam fara badan, mawaacid fara badan, akhlaaqyo fara badan iyo waxyaabo badan oo ummadda lagu hagayo. reer bani israa'iil aad bay uga hadli doontaa suuraddu, yaanan ka hor dhicine mar allaala markaan gudaheeda gaarno ayaan arki doonnaa sida ay suuraddu markaa u hadlayso. bismi illaahi araxmaani araxiim. alif laam miim. ilaahay baa ku cilmi badan muraadku ula jeedo. saddexdaa xaraf ee alifka ah iyo laamta iyo miimka ilaahay baa yaqaana ujeeddada iyo muraadkuu ka wato. sababtu waxay tahay meel lagu fasirayna lama arkin, meel kaloo looga dayan karo qur-aanka looga soo qaadan karana ma laha. rasuulkuna sidaasuu markaa uga tegay. idan sida ugu fiican waxay tahay in ogaalkeeda ilaahay loo dhaafo subxaana wa tacaala. alif laam miim. ilaahay baa yaqaana muraadku ula jeedo. daalika kan alkitaabu ee kitaabka ah, laa rayba shaki dhexdiisa ma ahaanin. laa rayba wax shaki ah oo ku sugan ma jiro fiihi gudihiisa. hudan waa hanuun oo wuxuu u yahay lilmuttaqiina dadka muttaqiinta ah ee rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala. daalika alkitaabu kitaabkan buu leeya ilah subxaana wa tacaala ee qur-aanka ah, laa rayba fiihi gudihiisa shaki ah oo ahaaday ma jiro, ama laa rayba shaki ma ahaanin. fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday hudan hanuun lilmuttaqiina dadka muttaqiinta ah ee rabbi aaminay ee ilaahay ka cabsaday ayuu hanuun markaa ugu sugan yahay kitaabka qur-aanka ah. yeeyihiin mu'miniinta alladiina kuwii weeyaan yu'minuuna rumaynahayay bilgaybi qaybka rumaynahaya buu dhaha subxaana wa tacaala. qaybka ayay markaa rumeeyaan. wa yuqiimuuna asalaata salaadana oogaya
wa mimaa rasaqnaahum kii aan ku arsuqnay xaggiisa qayb ka mid ahna yunfiquuna bixinayay nafaqaynayay. mu'miniinta qur'aanka muttaqiinta qur'aanka hanuunka uu u yahay ee ilaahay uu ugu talagalay subxaana wa tacaala yay yihiin. tilmaamahoodii baana loo tilmaamayaa. markuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala kitaabkan inuusan rayb shakiguu ugu dhex sugayn dadka muttaqiinta ah, muttaqiintii baa tilmaamahoodiina loo tilmaamayaa. tilmaanta ugu horaysa ee ilaahay uu ka bixiye muttaqiinta waxay noqotay inay qaybka rumeeyaan. qof qayb rumeeyey waxyaabaha indhaha uu saaray inuu rumeey waa min baabi awlaa. waxaa kow lagu ammaanayaa muttaqiinta inay qayb rumaysan yihiin. rabbigood ayay aamineen, weligoodna ma arkin. jannadii bay aamineen, weligood ma arkin. naartii bay rumeeyeen, weligood maysan arkin. malaa'igtii bay rumeeyeen, weligood maysan arkin. ilaahay baa kitaabka ugu sheegay qayb ayay rumeeyeen. waxyaabaha qaybka ah ee maqan ee rabbi kitaabka uu kaga hadlay tibay markaa rumeeyeen. aladiina yu'minuuna waa kuwa rumaynaya oo rumaysan bilgaybi qaybka. waa ilaah subxaana wa tacaala muxuu yihi falaa aqsimu bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruun. waxaan arkayno waxaanan arkaynin baa ka badan. wax walba oo qayb ah oo maalinta qiyaamo ka mid ah oo waxyaabaha ilaahay uu noo tilmaamo oo weligeen aanan arkin ka mid ah qayb baa lagu tilmaamaa. taa markaa way rumaysan yihiin. wayuqiimuuna waa tilmaanta labaad. waxay oogayaan, waa kuwa oogaa asalaata, salaadiina way oogayaan. wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna yunfiquuna waa kuwii markaa nafaqaynaya. wixii aan ku arsuqnay gobol ka mida ayay bixiyaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. masaakiintay siiyaanay ku taageeraan. maxaa kaloo lagu yaqaanaa waaladiina kuwii weeyaan muttaqiinta yu'minuuna rumaynahayay bimaa unzila wixii lagu soo dejiyey ilayka xaggaaga rasuulkii allah, wamaa unzila iyo wixii la soo dejiyey min qablika adi hortaada, wa bilaakhirati aakhirana hum ayagu yuuqinuuna yaqiinsan. aakhirana kuwii yaqiininaya oo yaqiinsan ah, kuwaasuu qur'aankan iyo kitaabkan u yahay hanuun iyo miday ku hanuunaan, khayrka iyo wanaaggana ay ku raacaan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. tilmaamaha kale lagu yaqaana dadka muttaqiinta ah waxay rumaynayaan wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey kitaabka qur'aanka ah, wixii isaga hortii la soo dejinayiyo rusushii hore lagu soo dejiyey. aakhirana kuwa yaqiinsan inay yihiin yuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. see lagu ogaanayaa inay aakhiro yaqiinsan yihiin? waa u dadaalayaan, waa u shaqaynayaan, waa u camal falayaan. ayadoon weli la gaarin yay maanta juhdigeedii dadaalkeedii gelayaan. yay maanta ku soconayaan say u haleeli lahaayeen jannada ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. sidaa darteed buu ilaahay yidhi waxay rumaynayaan waaladiina yu'minuuna waa kuwa rumeeya bimaa unzila ilayka wixii xaggaaga loo soo dejiyey. wax allaala wixii lagugu soo dejiyey qur'aankaabay rumaynayaan. iyo wamaa unzila wixii la dejiye min qablika adi hortaada, wa bilaakhirati aakhirana hum ayagu yuuqinuuna waayo kuwii yaqiinsan. maalinta aakhira inay dhacayso maanayso taasay markaa yaqiinsan yihiin, way og yihiin, way u dadaalayaan, way ku camal falayaan wixii allaala wixii maalintaa badbaadin lahaa. ulaa'ika kuwa la soo sheegay calaa hudan hanuun korkii way yihiin, hanuun korkiisay ku sugan yihiin. hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday. hanuunka ay ku taagan yihiin hanuun sahlan ma aha. waa hanuun xididada iyo salka ku haya rabbi xaggiisa inuu oga yimi subxaana wa tacaala. wa ulaa'ika kuwa hum ayagunbaa almuflixuuna kuwa muflixiintii aflaxayma in liibaanay markaa ah. dadkaa lasoo tilmaamayee rabbi rumeeyey subxaana wa tacaala muttaqiinta markay noqdeen, kitaabka qur'aanka hanuunka u noqday, qayb ka rumeeyey, salaada hagaajiyey, wax allaala wixii alla siiyey qayb ka mida bixiyey oo sakadii bixiyey, sadaqadii waajibkaa ku daray, haddana rumeeyey wixii nebiga lagu soo dejiyey, nebi moxamed hortiisa wixii la soo dejin jirayna rumeeyey, aakhirana yaqiiniyey. kuwaasi hanuun dushiisa yihiin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. ulaa'ika kuwaasi calaa hudan hanuun korkiibay ku sugan yihiin.
hanuun bay haystaan, hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday. wa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga unbaa almuflixuuna kuwii markaa aflaxay ah, kuwii liibaanay. waa kuwa calaamaadka iyo sifaadka iyo tilmaanta ay dadka mu'miniinta ama muttaqiinta ay leeyihiin ayaa intaa lagu soo arooriyey, lama dheeraynin. sababtu waxay tahay waa dad mabda' leh, waa dad meel loo raaca leh, waa dad ilaah subxaana wa tacaala iimaan iyo wanaag iyo qalbi furnaan iyo yaqiin ku manaystay. wuxuu ilaahay tilmaamay qur'aankan la soo dejiyey inuusan gudihiisa shakiba ku jirin, wax laga shakiyaaye ma laha, shaki kuma sugna. saa darteed waxaa noo imaan doonta haddii aad ka shakisan tihiin wax allaala wixii aan nebiga ku soo dejinay, intaa shakisanna waa in shakigooda aan sal iyo raatoona lahayn, waa dad shakigooda ka soo qaad lahaynoo xaqiiqo aan ku sugnayn. sidaa darteed baa dadka mu'miniinta ah ee muttaqiinta ah waxaa lagu soo ururiyey inay qayb oo dhan rumeeyeen, wax walbuu ilaahay ka hadlay subxaana wa tacala aysan arkin, inay salaad hagaajiyeenoo cibaadadii ugu fadliga badneedee rabbi lagu hor istaagahayay ay markaa sameeyeen. mujtamaca iyo bani aadamka la dhex nool ee fuqarada ah ee baahanna aysan iloobin, waxna ay siiyeen. inay rumeeyeen wax allaala wixii nebiga lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam, nebiyadii hore wixii lagu soo dejin jiray oo dhanna ay jumlo ahaan markaa u rumeeyeen. aakhiradii la aadayey ee dadka lagu kala abaalmarinayeyna ay yaqiinsan yihiin oo maskaxdooda habeen iyo maalin ay ku jirto. kuwaasi inay hanuun dushiisa yihiin, hanuunkaasoo xagga rabbi uga yimid, intaa kadibna ay yihiin kuwa aflaxee markaa liibaanaya adduun iyo aakhira labadaba. qolo labaad baa loo gelayaa, waaladiina kubii, ina aladiina dheh kubii kafaruu kufriyey ee gaaloobay. markii intaa loo dhaafay qoladani ayaa qoladii kalaa haddana naloo tilmaamayaa waa kaafiriintii. ayagna mabda' qallafsan oo meel loo raaco leh ayay haystaan. kuwani mabda'ooda waa iimaan iyo alla ka cabsi iyo daaci ay aakhira u diyaargarow. kuwana waa beenin. ina aladiina kubii kafaruu kufriyey oo gaaloobay oo ilaahay diintiisii ku kufriyey oo inkiray waxdaaniyadii jiritaankii ilaahayna, sawaa'un calayhim korkooda isku mida buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. waa isku mid kuwa, sawaa'un waayo kuwa siman oo eg calayhim korkooda. a andartahum udigtayaa am lam tundirhum udiginaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. maba rumaynayaanba. ictiqaad xun bay haystaan, caqiide qallafsan bay haystaan, waxaan wanaagsanayn bay haystaan. waa kaafiriintii. ina aladiina kubii kafaruu gaaloobay oo kufriyey oo beeniyey wax allaala wixii in la aamino mutaystay oo dhan beeniyey, waxdaaniyadii beeniyey, wuxuu alla soo dejiye oo dhan inkiray. sawaa'un calayhim waa isku mid dushooda buu dhahay ilaahay, way siman yihiin. a andartahum udigtayaa am lam tundirhum ama udiginaaba laa yu'minuuna ma rumaynayaan. maxay dhaheen qoom huud? sawaa'un calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin. na wacdisayaa, naga aamustayaa, anagu isku mid baan nahay. kaafiriinta waa isku mid buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. udigtayaa, danqan maayaan, u degdegi maayaan, cadaab uga digtayaa, carari maayaan oo macaasi ka carari maayaan. waa isku mid, way siman yihiin. sawaa'un calayna adacawtumuuna, haddaad noo yeertaan, haddaad naga aamustaan, isku mid baan nahay bay dhaheen. sidaa darteed baa haddii la wacay haddaan loo wacinba isku mid ay markaa yihiin. sawaa'un calayhim a andartahum udigtaya am lam tundirhum ama udigina ood ka aamustayaaba laa yu'minuuna ma rumaynayaan buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. sababtaysan u rumaynayn maxay tahay? khatama allaahu, ilahay baa daboolay, ilaahayaa daboolay subxaanahu wa tacaala. khatama allaahu, ilaahay ayaa daboolay calaa quluubihim, quluubtooda dusheedu ilaahay daboolay. wa calaa samcihim, aragyaashooda dushoodana ilaahay wuu daboolay. khatama allaahu, ilaahay baa daboolay calaa quluubihim, quluubtooda. wa calaa samcihim, maqalkooda.
maqalkooda iyo dhagahoodii waxay wax ku maqlayeen dushoodana ilaahay baa daboolay. wa calaa absaarihim aragyaalkooda dushoodana khishaawa dabool baa ahaaday. araggooda dushiisii waxay meeshay wax ku arkayeenna way daboolan tahay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. intaasaa laysugu daray. khishaawa ayaa ahaaday. walahum waxa ay leeyihiin cadaabun cadaab, cadaabkaasoo cadiimun weyn ayay leeyihiin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. ayna meeshaa looga baxay. laguma dheerdheeraanin, mu'miniintiina laguma dheerdheeraaninoo mabda' bay haystaan. kuwana laguma dheerdheeraaninoo mabda' iyo meel loo raaca bay haystaan. mabda' kufrinimay haystaan. waa isku mid haddii la waaniyo haddaan la waaninin, xaq haddii loo sheegay haddaan loo sheegin, haddii loo digi haddii aan loo digin maba rumaynayaanba. waayo khatama allaahu, ilaahay baa daboolay calaa quluubihim, quluubtooda dushooda ayuu ilaahay daboolay. wa calaa samcihim, iyo maqalkooda dushiisa. wa calaa absaarihim, aragyaalkooda dushoodana khishaawa dabool ba ahaaday buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. waxa ay leeyihiin cadaabun cadaab, cadaab ayay leeyihiin, cadaabkaasoo cadiimun markaa weyn. waa qoladii labaad. qole saddexaad baa jirta. qoladaas saddexaad aad baa loogu dheerdheeraanayaa. sababtu waxay tahay meel loo raacay ma laha, mabda' toosan ma laha, mabda' qalloocan ma laha, meel aad u raacdo iyo meel aad ugu hagaagto intuba markaa ma laha. waa qaybta saddexaadee dadka ka mid ah. wa min annaasi, dadka waxaa ka mid ah man mid yaquulu odhanaya aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay iyo wa bilyowmi aakhiri maalinta aakhiro. wamaa hum mana ay ahaanin buu dhahay ilaahay bimu'miniina kuwa mu'miniin ah oo markaa rumeeyeyna ma ahan buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. ma ujeedaa? aamanaa bay dhaheen. kuwan waad u jeedaa waa kaafiriin. wacdi ama ha wacdinin, wax u sheeg ama ha u sheegin, isma bedelayaan, ma danqanayaan, sidooday markaa u socdaan. kuwaan safiiri. wa min annaasi, dadka waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah yaquulu odhanaya aamanaa billaahi, ilaahay baanu rumaynay, wa bilyowmi alaakhiri, maalinta dambee aakhirana waa rumaynay. wamaa hum bimu'miniina, kuwa rumayna maahan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. mana rumaynin. oo maxaa ku kalifaya? maxaa beentaa ku kalifaya? maxaa arrintaa u sabab noqday? yukhaadicuuna allaha, waasay ayagu la tahay. ilaahay bay dhagrayaanay khiyaanayaan. iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey. wamaa yakhdacuuna, mana khiyaanahayaan oo ma dhagri karaan ilaa anfusahum, naftooda maahane. wamaa yashcuruuna, mana oga. kaaga sii daran, mana oga buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. sababta ku kaliftay ayagoon iimaan lahayn, sababta ku kaliftay ayagoon aakhiro rumaynin inay dhahaan ilaahay baan rumaynay, waxay tahay inay isku moodaan ama ay rabaan inay ilaahay khiyaano subxaana wa tacaala. afka waxyaabaha ay ka sheegayaan iyo uurka waxa ugu jira yaa kala laba ah. taasay ula tahay inay alla ku dhagrayaan subxaana wa tacaala. yukhaadicuuna allaha, ilaahay bay dhagrayaan amay khiyaanayaan. iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey, xaqiiqdiina wamaa yakhdacuuna, ma khiyaanayaan oo ma dhagrayaan ilaa anfusahum, nafafyaalkooda maahane. wamaa yashcuruuna, mana oga buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. mana oga xaqiiqdu inay sidaa tahay. fii quluubihim, quluubtooda dhexdeeda maradun jira ahaatay. quluubtooda jira ku sugan buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. fii quluubihim maradun, quluubtay ka bukaan, qalbiyaalkay ka jiran yihiin buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. fazaadahum allaahu, ilaahay baa wuxuu u siyaadiyey maradan jiro. quluubtay ka jiran yihiin oo quluubtay ka bukaan. fii quluubihim, quluubtooda waxaa dhex ahaatay maradun xanuun, jiraa dhex ahaatay, marad ayaa dhex ahaaday. fazaadahum allaahu, ilaahayna wuu u kordhin oo wuxuu u siyaadiyey maradan jiro. waayo qur'aanku wuxuu ilaahay ku tilmaamay rijsiga iyo qurunka ay ku sugan yihiin inuu ilahay rijsi ugu siyaadiyey subxaana wa tacaala. inta munaafiqiinta ah ee quluubta ka bukatay rijsi bay ku sugan yihiin. fazaad, ilaahayna wuxuu u sii siyaadinayaa rijsan ilaa rijsihim, qurunkoodii baa qurun loogu sii siyaadinayaa. way imanayaan ayagoo faasiqiin ah. sidaa darteed buu rabbi yidhi yukhaadicuuna allaha, ilaahay bay khiyaanayaan.
iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna mana khiyaanahayaan oo ma khiyaani karaan xaqiiqdii oo khiyaanadaa waxay ku soo noqonayso waa ayaga uune ilaa anfusahum nafyaalkooda maahane wamaa yashcuruuna mana oga buu dhaha ilah subxaana wa tacaala waayo fii quluubihim maradun qulubtay ka bukaan qalbiyaalkooda gudihiisa ayaa maradun jiro ahaatay fazaadahum allaahu ilaahay ha u ziyaadiyo ha u kordhiyo maradan jiradee ama ilaahay wuxuu u siyaadiyey jiro kale walahum cadaabun cadaab bayna leeyihiin aliimun ee xanuun badan bimaa kaanuu yakdibuuna bimaa kaanuu ahaasho ay ahayeen sababteeda ayay ku leeyihiin buu ilah subxaana wa tacaala yukadibuuna ama yakdibuuna yukadibuuna ay beenin jireen ayay markaa ku leeyihiin beenintii ay beenin jireen bay ku leeyihiin cadaabka xanuun ka badan ama yakdibuuna beentii ay sheegi jireen ayay markaa ku leeyihiin cadaabka xanuunka badan quluubtay ka bukaan ilaahayna waa u siyaadinayaa jirada walahum cadaabun cadaab ayaa u sugnaado ay leeyihiin aliimun xanuun badan bimaa kaanuu yakdibuuna beentii ay sheegi jireen ayay ku leeyihiin sababtiisa ama yukadibuuna ay beenin jireen taasay markaa cadaabka ku leeyihiin waidaa qiila haddii loo yidhaahdo lahum ayaga laa tufsiduu war hoysaan ma wanaagsana waa rumaynay intaad dhahdaan oad rumayn weysaan inaad iska dhigtaan dad alla khiyaana idinkoon khiyaani karin saa ma wanaagsanay arlada ha ku fasahaadinina ee fasahaadka joojiya ee dad wax islaaxiya noqda ee mabda'a toosan qaata haddii la dhaho waidaa qiila haddii loo yidhaahdo lahum ayaga laa tufsiduu ha fasahaadinina oo ha halaynina fil ardi arlada gudaheeda qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu muslixuun ana waaba islaaxinaynaade innamaa in kale maba ahee naxnu annagu unbaa waxaa ah muslixuuna kuwii wanaajinaya arlada see noo leedihiin arlada ha fasahaadinina annagaaba islaaxinayne dadkii wanaajinayaan nahaye arlada sideedaba ilaah baa islaaxiyey cid ay islaax uga baahan tahayna ma jiro laakiin waxaa nala amray arladii ilaahay wanaajiyey ee islaaxiyey inaan anagu ka fasahaadinin inaan anagu ka halaynin taasaa nala amray walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa arlada ha fasahaadinina islaaxeeda kadib saasaa noo imaan doontaa arladan anaa islaaxinay iyo anaa wanaajinay iyo wixii ku wanaagsanaataan keenaya cid looga baahan yahay ma jirto la islaaxiyey oo hagaajiyey oo nadiifiyey wixii loogu talagalayna dhex keenay idan yaan laga halaynin yaan laga wasaqaynin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa wadacuuhu khawfan wa tamacan saasuu ilaahay tilmaama sidaa darteed baa dadkan haddii loo dhaho arlada ha fasahaadinina ee fasahaadka joojiya waxay odhanayaan innamaa naxnu muslixuuna ana waan islaaxinaynaa kuwa islaaxinayoo wanaajinayaan nahay alaa hooyaay innahum ayagunbaa almufsiduuna kuwii fasahaadinaaye ah walaakin laa yashcuruuna laakiin ma oga waxay isku moodaan inay arlada hagaajinayaan waxaan ay ku socdaan bay moodaan inay arlada u fiican tahay fasahaadkan ay ku wadaan bay moodaan inay hagaajinayso alaa hooyaay war hoy baraaruga soo jeesta si wax laydinkugu sheego ood xaqiiqda u ogaataan innahum ayagunba almufsiduuna kuwa mufsidiin ah kuwa fasahaadinaya waa ayagu walaakin laa yashcuruuna laakiin ma ogo ma dareemayaan waidaa qiila haddii loo yidhaahdo lahum ayagu aaminuu rumeeya kamaa sidii aamana annaasu dadku ay u rumeeyeen oo kale qaaluu waxay odhanayaan anu'minu ma rumaynaynaa oo ma waxaan u rumaynaynaa kamaa sidii aamana asufahaa dabbaaladu ay u rumeeyeen oo kale maangaabyaalka kuwa aan caqliga lahayn hal mabda-un iska qaatayoo hal meel iska wada galay kaa miyaan u rumaynaynaa alaa hooyaay innahum ayagunbaa asufahaau doqomii dabbaalo ah walaakiin laa yaclamuuna laakiin ma oga buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala ayagaa mutaqaana sufaha ah ayagaa doqomo ah ayagaa dabbaalo ah ayagaa safihnimadu ay ku dambaysaa haddii la yidhaahdo warhoy rumeeya rumayn kaamil ah rumeeya war waxaan marba dhinacaad aadaysaan joojiya way qur'aanka inoogu imaan doontaa mudabbibiina bayna daalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa kuwanna ka mid ma ahan kuwanina ka mid ma ahan dhexday dhex meeraystaan war saa dhaafa
oo sida ay dadka u rumeeyeen saxaabada nebiga say u rumeeyeen oo kale u rumeeya haddii loo yidhaahdo waxay odhanayaan ma anagaa dabbaalo ah, ma waxaan u rumaynaynaa sida doqomiinta oo kale, wax magaradka sufahada oo kale. ayagaa sufaha buu dhaha ilah subxaana watacaala, ayagaa dabbaalo ah, ayagaan caqli lahayn, laakiin ma oga. waidaa qiila haddii loo yidhaahdo lahum ayaga aaminuu u rumeeya oo rumeeya kamaa sidii aamana annaasu dadku ay u rumeeyeen oo kale, dadka iimaanka raasiqaa qaatay, yaqiinta dhabtaa qaatay, dhinac kale aan aadaynin, haddii xaaladooda dadkaasoo kale xaaladiina saasoo kale ka dhiga la dhaho oo saasoo kale u rumeeya, qaaluu waxay odhanayaan anu'minu ma rumaynaynaa kamaa sidii miyaan u rumaynaynaa aamana asufahaa doqomada iyo dabbaaladu ay u rumeeyeen oo kale. alaa hooyaay inahum ayagu hum ayagunba asufahaau doqomo ah, walaakin laa yaclamuuna laakiin ma oga. waidaa laquu hadday la kulmaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay. waidaa khalow hadday u khaali noqdaanay u gooni noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii waa odayaashoodiiye qaaluu waxay odhanayaan innaa macakum ruyninku annagu idinkaan idinla jirnaa, innamaa in kale ma ahay naxnu anagu mustahzi'uuna baanu ahayn kuwa isaga jeesjees. mashale baad noo jeedeen markaan la fadhinay, mashale baadna arkayseen markaan aamanaa lahayn oon la tukanaynin, jees uunbay naga ahayd. allahu ilaahay baa yastahzi'u ku jeesjeesi doona subxaana watacaala. say muslimiinta ugu jeesjeeseen oo ay diinta ugu jeesjeeseen allah ku jeesjeesaya subxaana watacaala. waidaa laquu hadday la kulmaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay waan aaminay. waidaa khalow hadday isu haraan, hadday khaali u noqdaanay u gooni noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintooda xaggiisana xaggooda qaaluu waxay leeyihiin innaa anagu macakum la jirkiinaanu nahay, annagu idinka ayaan idinla jirnaa, inamaa in kale maahee naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaanu ahayn. allahu ilaahay baa yastahzi'u ku jeesjeesi doona bihim ayaga, ilaahayaa ku jeesjeesaya subxaana watacaala. allahu ilaahay baa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaya. wayamudduhum wuu u ziyaadin ilaa subxaana watacaala fii tuqyaanihim qooqooda iyo kibirkooda dhexdiisa ayuu u ziyaadin ilaa subxaana watacaala. ayagoo ku wareersan oo ku dhex sugan ayuu ilaahay ku jeesjeesay subxaana watacaala. xoolaa loo siyaadin, caafimaad baa loo kordhin, ayagoo fasahaadkaas wada oo diinta ilaahay saa ugu jeesjeesaya yaa meelba meel sare lasii gaarsiin, oo sharafba sharaf kaloo faa'iido aan lahayn la gaarsiin, oo xoolihii caafimaad loo siyaadin, markaasay ismoodayaan inay khayr iyo wanaag markaa ku jiraan. allahu ilaahay baa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaya ayagana. wayamudduhum ilaahay wuu u siyaadin, wuu u taagaya subxaana watacaala fii tuqyaanihim qooqooda iyo kibirkooda dhexdiisa ayuu u ziyaadin ilaa subxaana watacaala. yacmahuuna ayagoo markaa wareersan. ulaa'ika kuwaas aladiina kubii waaye ishtarow iibsaday aldalaalata baadibay bilhudaa hanuunkii ku iibsadeen. hanuunkii ay haysteen intay iska bixiyeen ay gadeen iyo baadi soo qaateen buu ilaah leeyahay. famaa rabixat kumaysan ribxin, kuma faa'iidin tijaaratuhum tijaaradooda, wamaa kaanuu muhtadiina kuwa hanuunaynaysan noqon. wamaa kaanuu mana aysan ahaan oo ma noqonin muhtadiina kuwa markaa hanuuna. kuwa hanuunka iyo khayrka iyo hidaayada qaatana way noqon waayeen, way muttaqiin ma aha. low ay muttaqiin ahaan lahaayeen ilaahay baa tilmaamay ulaa'ika calaa hudan min rabbihim, ilaahay baa tilmaamay laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. laakiin dadkan waxay u hanuuni waayeen, muttaqiin bay noqon waayeen. waa ag yaalaa, way u jeedaan, way arkayaan, nebi maxamed baa dhex nool oo dhexdoodii jooga, ayuu xaaladoodu ay sidaa tahay, iyo haddana intay baadidii soo qaateen hanuunkay markaa iska bixiyeen. ulaa'ika kuwaasi lasoo tilmaamay oo sifooyinka lagu soo siriyey aladiina ishtarow waa kuwii iibsaday aldalaalata baadidiibay bilhudaa ku iibsadeenoo hanuunkii ayagu ay haysteen bay intay iska bixiyeen yay baadidii ka doorteen. macnaha tiiba marka waxaa looga dhigayaa
cawad iyo bedel waxay iib ku sameeyeenoo intay hanuunkii qalbiga afka ay ka qaateen, baadidiina uurka ay ka galeen, inay hanuunkii intay bixiyeen baadidii ay markaas soo qaateen. famaa rabixat, kumaysan ribxin buu dhahay ilaahay. ribix kama helin, kuma faa'iidin, wax ay ka dheefeen ma jiro tijaaratuhum tijaaradoodii, wamaa kaanuu muhtadiina, kuwa hanuunayna maysan noqonin. wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala muhtadiina, kuwa markaa hanuuna oo xaqa iyo wanaagga iyo diinkii daacada alla raaca, kuwaana markaa way noqon waayeen. munaafiqiinta loola jeedaa dadka sifaadka lagu tilmaamayo aad baa loogu dheeraaday. sababtu waxay tahay meel loo raacayo markaa ma jiro, mabda' loogu hagaagayo markaa ma laha. weli tilmaamahoodii baa noo sii socdaa. mathaluhum kamahali aladii istawqada naaran, laakiin meesha ha inay joogto. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala